Eritrea waxaan ku gaarnay Eritrea waxa weeye waa dal runtii aan wax badan ku leenahay oo noo ogsoon inaan wax badan ku leenahay laga bilaabo 60kii ilaa maalinta iyaga xorriyadda qaadanayeen waxa ku socday dhaqaale Soomaali ee leedahay taxpayerska dadka cashuurahooda in la hubeeyo in dhaqaale la siiyo si ay u helaan xorriyadooda bini'aadamku isku mid ma aha dad badan wax loo taraa jira oo annagu haddii lixdameeyadii iyo toddobaatameeyadii intii dowladda Soomaaliya xoog lahayd wadamo badan yaan wax ka horeen laakiin waxba nooma oga laakiin madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki wuu aaminsan yahay haddaysan Soomaali jirin inuusan xorriyad yeelan lahayn oo wuxuu nagu yiri aniga wafdigeyga dadkiisu wuxuu u sheegaa in xorriyadooda ay dhamaystirnayn inta Soomaaliya ay dhibaato ku dhex jirto ama ay qaybsan tahay wuxuuna diyaar u yahay inuu abaalkii gudo marka Soomaaliya inaan abaalkii iska gudto marka meeshaas way meesha saddexda qaybood uu ka soo galay marka ninaan abaal ku leenahay oo Soomaali abaal ku leedahay ogsoon inaan abaal ku leenahay iyo Prime Ministerka Abiy oo leader cusub ah oo doonaya geeska Afrika afkiisana iga yiri wax alla wixii aan haysanay wax ku gadnay hub ma doonayno hub kale inaan iibsano meeshaan kaara ka iibsan lahayn waxaan ka iibsanaynaa tractor cagaf waxaan doonaynaa buu yiri dadkeena inaan u furno ganacsiga dhaqaalaha sida ay tahay hadda xirxirnaashahana horumar iyo barwaaqo dadkiis kuma gaarayaan marka dadkiis waxay barwaaqo ku gaarayaan ganacsatadeenna u dirno oo ay baraan in la wada ganacsado la wada noolaado meeshaan u soconno waxay tahay Soomaaliya oo nabad hesha yaan u soconnaa Soomaaliya barwaaqa u soconnaa Soomaaliya oo noqota wadamada aan sheegay oo horumartay yaan u soconnaa Soomaaliya oo aan u kala qaybsanayn qabiilo yaan u soconnaa Soomaaliya oo nidaam iyo dawlad fiican heshay iyo sharci iyo kala dambeyn yaan u soconnaa waxaan u soconnaa Soomaaliya oo sharaf leh yaan u soconnaa ninka aan sharafta rabin muxuu rabaa marka ninka aan sharafta rabin wuxuu rabaa maanta kaliya rabaa laakiin annaga waxaan u soconnaa biri iyo 100 sano dambe yaan u soconnaa qofka maanta u socdo wuxuu rabaa luf wuxuu rabaa mashruuc 30 sano lagu soo jiray qofna wax ma tarin shacab weynii Soomaaliyeed wax ma tarin dalkiina wax ma tarin sumcadeena wax ma tarin marka majidkii aan ognahay aan ku fashilinay lagu wada fashilmay miyaan ku soconaynaa marka diyaar waxaan u nahay inaan jidkaas bedelno jid fiican inaan bilowno Soomaali waa dad fiican Soomaali sidaasi madaxdaas adduunka ay u sheegeen yaa dab ah shakhsi dad fiican ayaa u tihiin laakiin jamac waa la isku keen diray been baa lidin sheegay waxaad tihiin qabiilo ma tihiin Soomaali waa hal qabiil oo Ilaahay badiyay oo noqday aa'ilo families noqday marka ma familiada noqonay yaa dib noo keenay marka ilaan ummadii 100 luqadood ku hadlaayay oo kala duwanaa oo kala diinta ah waas wataane waa wada nool yihiin oo ah qaarkood waliba hadda annaga amsom noo soo diray oo naga difaacaya shabaabka waa ummad aan islahayn oo aan isku luqad ahayn annaga nagu kala dhex jiraan marka oo isku dad ah